waxaa soo taraya cambaareynta loo jeedinayo weerarkii bambaano ee lala bartilmaameedsaday isbitaalka ku yaala magaalada Gaza ee dhulalka Falastiiniyiinta halkaasoo ay ku geeriyoodeen dad kor u dhaafaya ilaa iyo 500 oo ruux isla markaana ay ku dhaawacmeen tiro kale oo ilaa 400 gaaraysa iyo in ka badan wararka kala duwan ee bambaanaha lagu dhuftay isbitaalka waxay iyaguna sheegayaan in tiradu halka ay ka sii badan tahay isla markaana jira dad fara badan oo waxyeeladu ay soo gaartay dhaawacaha balse markii dambe geeriyooday dhammaanba waxaa markaa warbaahinada caalamigu ay aad u tabinayaan dhacdada xanuunka leh ee lala bartilmaameedsaday ama ka dhacday isbitaalka magaalada Gaza ee ay dadka faraha badan ku geeriyoodeen oo carruurta u badan haddaba sidoo kale cambaareynta oo ay markaa wadamada midowga Yurub oo iyagu aanu la soconay inay taageero horeyba ugu muujiyeen Israel iyo waliba dalal kale oo adduunyadu waxay markaa iyagu sheegayaan in arinta iyada ee isbitaalka marinka Gaza ay tahay masiibo iyo dhibaato tacadiya oo loo geystay dad shacaba walow markaasi wadamada reer galbeedka ee taageerada u haya Israel ay markaa iyagu sheegayaan in weerarka ama bambaanaha lagu dhuftay isbitaalkaasi uu yahay mid ka yimid dhanka xoogga muqaawamada sidoo markaa iyagu ay doonayaan inay bulshada ama adduunyada inteeda kale ugu marin habaabiyaan in Israel ay tacadigaasi geysatay in kale waxaana sidoo kale soo baxaya warar kala duwan oo cidda iskale bamka lagu dhuftay isbitaalkaasi ama gantaalka isaga warshada ama wadanka laga leeyahay laga sameeyay bamkaasi dowladaha Ruushka iyo Turkiga ayaa iyagu markaasi iska kaashaday baaritaan dheer oo ay ku sameeyeen tan iyo markii weerarka isaga lagu qaaday isbitaalkaasi oo dadka faraha badan ay ku geeriyoodeen kuwana ay ku dhaawacmeen muddo hal maalmood laga joogo ayaa waxa markaasi warshada ama kambaniga u qaabilsan dowladda Turkiga sameynta afafka waa sameynta gantaalada afkooda hore iyo waliba qaraxyada ayaa waxa markaasi iyagoo iskaashi la sameynaya dowladda Ruushka waxay sheegeen in gantaalka lagu dhuftay isbitaalka marinka Gaza uu ahaa midka nooca loo yaqaano MK-84 oo ay dowladda Mareykanku leedahay waxaana sidoo kale ay sheegeen in bamkaasi ay markaa durbaba fahmeen dhawaqiisa iyo goobta marka uu ku dhacay sawaxanka markaasi uu bixinayay taasoo sheegtay in markaasi ay bamka si toosa u garteen nooca uu yahay isla markaana ay sheegeen MK-84 shaki kuma jiro bay yiraahdeen kambaniga saraakiil u hadashay ee dowladda Turkiga u qaabilsan waxyaabaha qarxa iyo sameynta gumacyada madaafiicda afafkooda hore ayaa waxay markaa sheegeen shaki kuma jiro in gantaalka uu yahay mid ay sameyso dowladda Mareykanka isla markaana MK-84 la yiraahdo waxa iyaguna dhanka kale dowladda Ruushku ay sheegtay tan iyo markaa ay weerarka lagu qaaday oo Israel ku qaaday isbitaalkaasi iyaguna ay baaritaan ku sameeyeen gantaalka halka laga leeyahay taasoo ay ku raaceen dowladda Turkiga kambaniga u qaabilsan walxaha qarxa in ay sax tahay in qoriga ama gantaalka qoriga uu ka soo dhacay gantaalka qodhiisa la yiraahdo MK-84 ama 84 oo dowladda Mareykanku ay leedahay waxa arinta iyada ay saameynteeda durbaba markaa laga dareemaya dalal fara badan oo adduunyada oo ay ka mid tahay dalalka Islaamka iyo waliba dadka shucuubta ee ku nool dowladaha reer galbeedka wadamadooda oo muslim iyo kuwa aan muslimba ahayn oo xitaa markaasi ay ku jiraan kuwa Yahuuda oo iyaguna sheegay inay aad uga murugoodeen ugana damqadeen tacadiga lagula kacay dadka ku noolaa ama ku sugnaa isbitaalka lagu weeraray marinka Gaza ee dhulalka Falastiiniyiinta dibadbaxyo kala duwan oo aan kala joogsi lahayn ayaa tan iyo markii xiisadahan ay bilowdeen September 7 bishan October aanu ku jirno ilaa iyo xilligan oo 13 maalmood ay xaaladda socoto
waxay ka sameynayeen meelo kala duwan oo dunida iyagoo markaasi ugu baaqayay dowladaha caalamka in tacadiga yuhuuddu ay ka geysanayso marinka gaza la hakiyo la joojiyo isla markaana lagula xisaabtamo hogaamiyaasha israa'iiliyiinta ee weeraradaasi tacadiga leh ee dhibaatooyinka ay ka soo gaartay dadka rayidka ee falastiiniyiinta in markaa maxkamad lala soo tiigsado. mudaharaadyada mid ka mid a ayaa isagu saacadihii laga soo gudbay waxaa markaasi dhigay dadka yuhuudda ee maraykanka ku nool ee iyagu markaasi sheegay in ay aada uga soo horjeedaan dhibaatada ay yuhuuddu ka geysanayso marinka gaza islamarkaana ay sheegeen in tacadiyadaasi ay yihiin kuwo lagula xisaabtamayo israel madaxdeeda. dibadbaxa ay dhigayeen ayaa dadkaasi waxay markii hore ka hordhigayeen afaafka hore ee aqalka koongareeska dalka maraykanka taasoo markii dambena keentay inay gudaha u galeen koongareeska maraykanka iyagoo markaa boorar sito ay ku xardhan tahay inay ka xun yihiin tacadiga israel ay ka geysanayso marinka gaza islamarkaana dowladda maraykanka ku eedeynaya inay markaa qalad ku tahay inay israel ku taageerto tacadiga iyo dhibaatada ay ka geysanayso dhulalka falastiiniyiinta. sidoo kale dibadbaxyo kala duwan ayaa iyaguna ka kala dhacaya meelo kala duwan oo dunida muslimka oo looga soo horjeedo tacadiga 13 maalmood iyo dhibaatooyinka yuhuuddu ay ka geysanayso marinka gaza ee dhulalka falastiiniyiinta. waxaa sidoo kale hoos loo dhigay baa la leeyahay calamada dalal fara badan oo markaa muslimiina oo ay ku jirto turkiga, iiraan, syria, lebanon iyo wadamo kale oo aada u tiro badan oo iyagu markaasi calamada wadamada hoos loo dhigay taasoo loogu baroordiiqayo tacadiyada ka dhacaya marinka gaza ee yuhuuddu ay geysanayso oo ay ugu dambeysay musiibadii markaasi ka dhacday isbitaal ku yaala marinka gaza ee dhulalka falastiiniyiinta halkaasoo dad 1,000 qofood gaaraya ay ku waxyeeloobeen kuwana ay ku geeriyoodeen kuwana ay ku dhaawacmeen kuwaasoo u badan caruur iyo dad rayida. waxaana markaasi dowladaha calamadooda hoos u dhigay ay muujinayaan sida ay markaa uga xun yihiin dhibaatooyinka iyaga ee 13 maalmood aan loo meeldayin ee dadka rayidka ee falastiiniyiinta lagu hayo. dowladaha turkiga iyo iiraan ayaa iyaguna waxaa markaa wararka soo baxaya ay sheegayaan in ay raadinayaan siday doontaba ha ku noqotee ay gurmad bini'aadanimo ku gaarsiin lahaayeen dadka marinka gaza iyadoo saacadihii laga soo gudbay ay xiriiro kala duwan sameynayeen labada dowladood wasiiradooda arrimaha dibadda ee turkiga iyo iiraan iyagoo markaasi ka wada hadlayay in si walba oo ay noqotaba dadka falastiiniyiinta ee rayidka ee dhibaatada lagu hayay 13 maalmood lagama maarmaan ay tahay in gurmad bini'aadanimo lala gaaro. waxaana iyana sidaad la socoteen masaaridu ay markaa dib u hagaajin ku sameynayaan wadooyinka dhanka falastiiniyiinta ee gaza iyo rafax ay markaa wadaagaan dowladda masar taasoo horay israel ciidamadeedu ay u burburiyeen ama diyaaradaheeda dagaalka ay gantaallo ku dhufteen wadooyinkaasi oo burburay. waxay arrintaa ka dambeysay kadib markii dhowaan dowladda masar ay gurmad bini'aadanimo oo ay doonaysay inay gaarsiiso dadka falastiiniyiinta laga hor istaagay balse waxaa la sheegay imaatinkii dhowaan ama uu yimid israel madaxweynaha dalka maraykanka Joe Biden waxay markaasi taasi keentay in israel iyo maraykanka ay ka wada hadlaan in israel ay ogolaato gurmad bini'aadanimo oo dadka falastiiniyiinta la gaarsiiyo taasoo markii dambena la sheegay in israel ay ogolaatay balse wax waliba oo galaya marinka gaza aanay si sahla ku galeen kadib baaritaan xoogan oo ay ku sameynayaan. taasi waxay ka dambeysay maalayiri kadib booqashadii madaxweynaha maraykanka Joe Biden uu ku soo gaaray israel taasoo markii dambe uu dib uga laabtay. waxaana sidoo kale Biden oo ujeedadiisu ay ahayd inuu socdaallo ku kala bixiyo dalal kale oo carabta ay hakisay kadib markii dalalkaasi qaarkood ay sheegeen in aanay markaasi diyaar u hayn wada hadal ama markaa shirar ama kulamo ay la qaataan maraykanka. sidoo kale wixii gurmad bini'aadanimo loogu talagalay dadka falastiiniyiinta ee marinka gaza ayaa sidaad ogtihiin waxay markaa gabi ahaanba dowladaha carabta isugu keeneen dalka masaarida halkaasoo la doonayo in la gaarsiiyo si markaasi dadka loogu gudbiyana waxay markaa noqotay in dowladda masar loo wakiishado maadaama xuduud ama xadka ay wadaagaan
halkaana ay rafax uga soo gudbinayso. ra-iisul wasaaraha dalka Britain sida aad la socotaan waxa uu markaasi isaguna gaaray Israel iyadoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron isaguna markaa la leeyahay waxa uu isu qabanqaabinaya tagitaanka uu tagi lahaa Israel iyagoo markaa u muujinaya sida ay uga xun yihiin weerarkii Hamas ay 7 bishan ku qaaday marinka waa markaa dhulalka Israel, taasoo ay ugu muujinayaan in midowga Yurub ay mar walba garab taagan yihiin Israel. shakina kuma jiro in Israel ay garab ka helayso dalalkaasi. dhanka kale xuduuda Israel iyo Lebanon iyana waxaa markaa saacadihii laga soo gudbay weli isweedaarsanaya madaafiic labada dhinac ee Hezbollah iyo waliba Israel waxaa lagu soo waramayaa in dadka ka agdhow goobaha xuduuda ee Israailiyiinta ay ka qaxisay oo ay ka rartay goobta iyagoo markaa sheegay inay ka baqanayaan in waxyeello ay ka soo gaarto madaafiicda Hezbollah ay la bartilmaameedsanayso ciidamada iyo cid walba oo dhaqaaqdo xuduuda Lebanon ay la wadaagto Israel. dadka aadka markaa ula socda siyaasadaha gobolka bariga dhexe waxay sheegayaan in Israel iyo Mareykankuba ay aad uga walaac qabaan in Hezbollah ay markaa dagaalka qayb ka noqoto, walow tan iyo 7 bishan aanu ku jirno markii weeraradan Gaza lagu hayo iyo howlaha ka jira bariga dhexe gaar ahaan Israel iyo Falastiiniintu ay bilowdeen. Hezbollah iyaguna dhankooda ay ka wadeen duqeymaha ay ka soo tuurayaan marka dhanka Lebanon iyagoo la bartilmaameedsanaya ciidamada howlgallada ka sameynaya ama roondada ka sameynaya xuduuda Israel iyo Lebanon ay wadaagaan. waxaana sidoo kale horay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran uu sheegay mar wax laga weydiiyey haddii markaasi Hezbollah ama Iran ay ka qayb galayso howlgalka ama dagaalada ka jira dhanka Israel iyo Falastiiniinta, waxa uu sheegay taasi jawaabteedu inay bixinayaan muqaawamada oo uu kula jeeday Hezbollah, iyagoo sheegay in hadiiba ay dhacdo in Israel ay weerar dhanka dhulka damacdo inay ku qaado Gaza, in jawaabta ay helayaan ay tahay in Hezbollah iyaguna ay ka qayb galayaan weerarka isaga ama dagaalka isaga, taasoo keentay in Mareykanku uu ciidamo ilaa 2,000 oo mariiniska Mareykanka u soo diro Israel oo ay ku sugan yihiin maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee ku sugan xeebaha Israel. weli ma muuqanayso saansaan rasmi ah lama dareemayo in xiisadan ay halkaa ku ekaanayso, taasoo muujinaysa in dadkii horey u taxliiliyay xaaladda Hamas iyo Israel ee sheegay inaanay halkaa ku ekaan doonin ay hadda durbaba soo baxayso saanta muujinaysa in xiisadan labada dhinac kaliya aanay ku koobnaan doonin.